ninka ragga waxa la xisaabayo waa qowlkiisa صح hadii oo barankan dadku suubinaa saasa u dhahay haduu laga yeeli maayo صح okay waa ku baan dadka suuq markii la tagayo waxa jecel yahay qof walbo neef baroor leh oo rajooyin la leeyahay oo xataa ciyaartooydeyna ay koob soo qaadeen 17 jirada السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنرال كان نقدر ونسا وبافيرة أما أبوان بافو ما أنت وحامرتيه نين مدة وريسنا أو عن ما أنت قرص جاركوا هاي قول سدو ودوا فرح سنة هاي سدو كلنا صاحب هذا كحيل جنرال كأبوان بافيرة عن ليه هاي وضيق هالي سعودي وسعودة ما سنت قلت وحن كان ربا سؤالك كوبن إنهم كويديو مدن waa ku raadinayay ilaahaygi ii ka sahla ma hadda iskale waana kaaga mahad celiyaa inta iga ogolaatay inaan ku wareysto guuled marxaladihii wadanka uu soo maray waad la socotaa inkastoo hadda xogaa rajooyin la leeyahay oo xataa ciyaartooydeyna ay koob soo qaadeen 17 jirada waxaan leeyahay hambalyo meel walba ay joogaan wiilasheena yaryarka aad iyo aad ayaad qalbigeena saameyn weyn ugu reebateen guuleed soo dhaw maxad aragtay maxad leedahay dhalinyaradan guush soo qaaday wax uun ii sheeg wallahi horta wax walba dadaal iyo juhdi lagu bixiyo ugu dambeyn walaga mar dhaliyaa saas sanado badan dadku waxay lahaayeen Soomaaliya ma buuxisaa maxaa loo goynaa ciyaalkan 8 sano 6 okay loo soo badinaa leeyahay okay laakiin waxa ilaahay xamdigiis ah South Sudan oo la xataa nimanka xoog la ka warsayeelan oo dhahay Soomaaliya way xasuuqay Soomaaliya darsana laga dhalinaa صح hadii ba anaga 3 ibro 3 hal ugu badan ka war koobkina soo qaaday ilaahay ma diso ilaahay ma diso wiilish maxaa leedahay wax walba oo dadaal iyo juhdi lagu bixiyana wala gaaraa wiilish maxaa leedahay marka wiilish waxa leeyahay mar walba waxa ugu muhiimsan madaxda hadda waxa arkay social media ilmihi ama wiilish soo guulista qabiila kala sheeganay hebel reer hebel waay hebel reer hebel waay hebel reer hebel waay waxa leeyahay waxyaabahaas iska ilooba qarannimo naga badan qof walba oo Soomaali ah meel allaale meesha uu dunida ka joogo uu ka dabaaldegay marka taariikh weyn waay Soomaaliya waxa ugu dambeysay koob noocan oo kale inay qaadaan zaman كونسل أبغى كودي عجيب under 20 هيد صح يوغندا أنا كبدني ما شاء الله إسلا وحنجعلها هاي معلنك هدا أودي ومركز وحوها عياريان عياري سان بوشو قولك بوشة اللي أوكي معلن كان محل ذي مع سجوني الله فيريو ما قاعد يصير نشك محلها مع النور أمين مع النور أمين وذكرنينا ومعلن قبير أو تخصص له حتى عيارتي نمنكو وعد أتكا السودان اللي أفكار مؤسكين sabto wuxuu rabay bilowga hore inuu daaliyo markii daalaan bedelo ku sameeyo dadkan oo kor saaro hadii wadaadiisa la saarana South Sudan wajaha wareer marka hatta tawbariya jawareer ciyaartooyda ugu fiicneed oo dheelaysa oo iska bedel rag dhalay kuwa kale ha muu jawareer marka macallin noocaas waxaan dhahaynaa macallimiinta hal ogaado oo falsafadaha fiican leh kaliya macallin bismihi صح ciyaaryahan oo garoomo soo galay badbaacada qaranka uu ciyaaray waa qabiir macnaha kooxdii dadka dunida waxay dhahaan kubad ahaan waxa ugu wanaagsan Barcelona صح badbaacada waxay aan jirtay kooxda waxa xasuustaa muriid Abu Nur Abati oo dheeli jiray oo asna laacib ahaa niman cajiib ah oo Nur Amin oo dheeli jiray sax way hore hal ogaada leeyahay ما شاء الله تبارك الله guuled waa mahadsantahay waxaan rabaa kale inaan ku weydiiyo caqabadihii adiga nafsad ahaan aad soo martay hadii ay ahaayeen jacayl hadii ay ahaayeen mid nololeed wax nooga taataab insha Allah taariikh nololeedkaaga wixii alla yaabtay aad soo aragtay wallahi Soomaalida badan waxay dhahaan yar UNC marka yar UNC la hada marka dadkii gadaal oo burburkii kadib dhashay oo nasiib darrada ku dhacday maadaama dawladnimada iyo nidaamkii dawladeed aan soo arkin صح
waxaa jiray dhacdooyin badan aan la kulmay sax aniga reer madiina ahaa sax madiinana waa ogeydba aada loo deganaa aada dadkaa ku badnaa dadkaa ku musuq maasuq wuu ku badnaa musuqmaasuqa ku badnaa xataa qabyaaladu way ku badnayd dadka xataa sax masaajida in loogu galo sax waay aa la dhihi jiray hadduu ilaahay iga celi kara bal laa masaajidka waa soo gashay laa xawla walaa quwata illaa billah dhacdada iuga badan waxay ahayd wiil xaafadda nala degan oo adiga hadda sida aan ku garanayo 3 wiila aa qori usoo qaateen bismillah waxay damceen inay dilaan balse adigu ka fakaday xabadoo ku riday midoo ka dhaawacay midkii kalena waa orday okay mid kaloo saddexaada soo harkiina markuu midna dhaawac midna orday oo arkay asna waa iska ordiyay sax kii dhaawac ahaa wuxuu sameeyey marka masaajid oo mawdac meesha ku yaala oo gal madiino suuqa weyn agtiisa meel xaafad la oo naf ka raadiyey oo naf ka raadi marka waxaan lahay dadkii xaafadii nin la yaqaano waay war hebel oo ninka waa magan ilaah oo kale masaajid oo kale ka leexaa leh ma yiri ma jirto dhaa hadduu ilaahay iga celi karo laa ilaaha masaajidka soo gashay ha iga celi laa ilaaha masaajidka gudihiisa inuu ugu soo galay oo 9 xabadood ku dhuftay subxaanaka ya allah marka dhacdo iga xanuun badan ma arkin niyo waxaa igu soo xigto kale aniga waxaa ahayn dadka aaminsan xaafadda ee ku dhashay ee ku koran sax hooyada aabesasi ahaayeen sax markii dagaalada bilowday qabyaalada qabiil ahaa dagaalada day bilowdeen markii dadka xaafadda badanaa way qaxeen sax idinka ma qaxin annaga ma qaxin marka xaafaddaas ku haleynayseen marka ugu dambeyn laakiin oo guriga saas u saarnaa oo hoobiyi kusoo dhacay I'm sorry maamadii deganeyd adi ciyaalkii way wadatay laakiin iyada iyo canug yaraa jooga iyo odagii markaas qaraab ku maqnaa inkastoo ilaahay uusan wax ku gaarsiin alxamdulilah laakiin gurigii dhanaa dhulka cajiib markaasi marka dhacday hooyada madiina ma jirtay meeshaan haa naga wada kadib aa qaxdeen kadib waa qaxnay intee u qaxdeen marka guuleed kadib waxaa u qaxnay waa iska ogeyd aday qabyaaladii waxaa jiray beledkiini marka beledkiini hooyaday dhinaceeda cidda jufada gadaal loo galay ma rabna inaan jufada kala qaaqaadno waa mahadsantaha guuleed dooqa qof kastaba dooq uu leeyahay raashinka dooqa ugu jeceshaa horta ii sheeg adiga team talyaani ah basta of course basta Pasta. cheerios spaghetti spaghettina okay naagahana dumarka midoo ilaahay calafka igu darorto wada joognaa alxamdulilah maya ma dooqa laakiin dooq ahaan soomaalidu waxay jecel yihiin tusaale ahaan suuq markay tegayaan xoolaha ama ariga gadanaya waa ku fahmay dadka suuqa markii la tagayo waxay jecel yihiin qof walbo neef baroor leh oo cadiin leh inuu soo gato sax waaye joodarigeeda shaakir too wadata macnaha oo joodarigeeda wadata fiiri waxaan umalaynaa ani adi inaan isku dooq agdhownahay sababtoo nio weyd mataqaan neefka markuu weyd yahay weyd waa taqaana malea oo caato yahay dadka ma jecla laakiin ninaa shirbay hadda kahor wuxuu dhahay haddaad rabtid raaxaysi oo dhahay tan raaraaracdaa rayso dhahay ma fahad oo raaraaracda makase aydan haddaad rabtid meelo roogsi oo dhahay oo inaad ku fahamtid tan kale reereebanaa rayso dhahay ma fahad oo alla naa qurux badan oo wataa oo lagu dhaho haddaad rabtid reer dhaqaalkiisana oo dhahay tan canyuuqda canyuuq mataqaan oo foosha xun aa rayso dhahay ma fahad marka ninkaas xoogaa wadnay caqli badaysa ila tahay guuleed soo dhawow waxaan rabaa kale inaan ku weydiiyo maalmahan media way waasheen waxaa waashay media waxay sheegayeen catoosh iyo gabadha maslaxa soo inay isfureen ay kala tageen aniga laakiin adiga sidee kula taa horta waxay la tahan ku sheegeen inay isfureen oo dagaal oo ka dhex taageen والله horta qof walba aragtiyo leeyahay sax laakiin waxa ugu muhiimsan xukunkana leh markii nin naag isqaba ay tahay ninka iskale sax inkastoo saaxiibo badan oo dhahay anaa kuursanayo saygeedana uu leeyahay naagteeda waa qabaa weli ma furin bravo ana waxay ila tahay waxaasoo dhan inay baranki yihiin good oo fiis lagu raadinayo sheekadii shaadi sharaf iyo cabdifataax oo kale daawadayaal lagu raadinayo okay laakiin naa kaloo ila aroos okay laakiin la soco mid la soco
hadduu ninka yiraahdo waa kala tagna way furan tahay ها dadkana markhaati uga dhigo ها la socda nimankii naagaha barankiga dadka ku suubinaya ee dhahay waa kala tagnay haddii uu yiraahdo islaantayda waa kala tagnay hadalkaas balka u fiirsada way kala furan yihiin ها inkastoo kelimo nooga aqoon badan ay ma yaba tabcan ma tabaa talaaq fiiri hadii marba afkiisa ninka ragga waxa la xisaabaya waa qowlkiisa صح haddii oo barankan dadku suubinaya saasaan u dhahay hadhow laga yeeli maayo صح wala xisaabina ha ogsoonow haddii aad tiraahdo naagtayda waan kala tagnay ma isqabna haddaad tiraahdo way kaa furan tahay naagta waxay rabtaa sheegto ila naag ila qowlkeeda maba xisaabnaba طبعا nimanka iswaalayo waraa dimaashada isku mubtada seedigaha isku xumeen hadda waxaan arkay ayub kaarlamaan inuu dhahay waa ku aroosha gafur culus soo martay adii meesha maxaa ka tartaa howlaha baan qatal be ha macnaha xasano waxa ugu muhiimsan in saygeedu uu joogo uu leeyahay xaskiga waa jeclaha ma furin wixii kalena war waay marka taas aanay raacayna waa maasantahay kaas wuxuu ahaa guuleed maarso asxaabta guuleed maarso waxaan leenahay meel walba ku sugantii salaamu calaykum baafiyar inta ku xirana guuleed maarso soo booqdaan insha Allah taala inkastoo janaalkiis markuu aan dhahay inuu inkastoo ka hadlay guuleed maarso soo booqda insha Allah taala soo booqda abwaan baafada haduu saarirtid salaamu calaykum abwaankana saaxiibada aniga ku xiran wax jeclaa lahaa abwaanka in dhaqaajiya thank you so much guuleed waa ku salaamay waa kaaga hambalyeynayna